soo dhawaad saaxiibayaal fiidiyogan waxaan kaga hadli doonaa dhacdooyinka ururka ama aadka ugu fashilmi kara Hindiya sanad walba. Hindiya waxaa kollejyada isku dila ama isku dhaafiya arday ka badan kumanaan. Taasi micnaheedu maaha in ardayda ay u dhimanayaan dhaqaale xumo kasoo wajahday dhanka waxbarashadooda oo ardayda qaar oo waxaa jira scholarship hela ama dhigta kollejyada public ay dowladda sida free ku bixiso oo waxaad arkaysaa haddana nafta is dhaafinaya. Hoostahay ardaygaas waxa uu isku dilay depression ama stress uu ka qaaday culayska ka yimid dhanka iyo waxbarashada. Systemka Hindiya ayaa waxa uu dhigayaa in ardayga xilliga uu college-ka dhiganayo uu deganaado hostel uu college-ka leeyahay, taas oo ka xirxiraysa in ardayga environment-ga banaanka uu la qabsado oo waxay dadku ku qasbay in 24 sano noloshiisa uu ku dhex jiro environment waxbarasho ah, taas oo u keenaysa stress iyo depression. Daraasado badan oo la sameeyay ayaa waxaa lagu soo saaray xog warinaysa in ardayda ugu badan freshka ah ay ku adag tahay inay la qabsadaan marxaladda cusub ee nolosha cusub ee markaa galayaan, maadaama ay ula muuqanayso mid sida xabsiga oo kale. Hindiya waqti xaadirkan ku jirto waddanka koowaad ee ugu population badan dunida ayaa waxa ay ka dhigaysaa in dadka Indianisku ay noqdaan kuwo boqolkiiba hal noqda in ay ka badbaadaan adag ee ka jira waddankaas, sababtoo ah waddanku waxa uu la daldalayaa dhaqaale xumo iyo tirada ugu badneed ee waddan ay ku noolaadaan bani'aadam. Inta lagu guda jiro sanadkan oo bishii shanaad hadda sii socoto, waxaa lasoo warinayaa in gobolka Uttar Pradesh Rajasthan laga soo warinayo tirada ugu badneed ee arday ee halka isku disha, taasina oo ka yimid culaysyo dhanka imtixaanada medicalska oo arday badan halkaa drop out ku noqdeen. Sababaha ardayda isku dilan ayaa waxaa lagu soo warinayaa systemka waxbarashada uu aad u adag iyo ardayda oo ay ula muuqato haddii ay fursaddan dhaafto inaysan jirin fursad nololeed kale ama horumar future kale aysan lahayn, maadaama ay ardaydu da'ahaan xataa aysan maskaxiyan isku filnayn oo ardayda ugu badanaa isdilka kiisaskooda lagu soo wariyay waxay u badan yihiin arday teenagers ah. Ayadoo Hindiya ku jirto waddanka koowaad ee ugu dad badan dunida, haddana waxa ay la daalaa isdillanka kasoo wajaha dhalinyarada markaa soo baxaysa. Inkastoo waddanka yahay waddan dhaqaale ahaan aad hoos u dhac u sameeya, laakiin waxbarashadu asaasiyan yahay wadamada ugu horumarsan dunida dhanka iyo teknolojiyada. Marka la eego systemka waxbarasho aad u adag iyo ardayda oo markaa kuwo fursadaha waxbarasho ee aad ugu yarta helitaankooda ayaa waxay ka dhigaysaa in waayitaanka waxbarashada ay ku horseedo in ay naftooda gooyaan.